nabiga calayhi salaatu wasalaam oo safara ayaa nin acraabiya ku soo baxay. ninkii acraabigaaba soo dhoweeyey si fiican buu waa marti soore. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam hadday ciidiyad ku yeelato wuu abaalgudi jiray. ay jirtay cid nabi maxamed wax tartay oo aanu isku dayin waxa ugu badan inuu taraa abaallaawa ma ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. cid kastoo yad ku leh abaal ku leh wuu abaalgudi jiray. markuu arkay ninkan marti sooray buu wuxuu ku yidhi ii ballan qaad inaad noo imanayso noo kaalay buu ku yidhi madiina igaga daba kaalay oo ku abaalgudayaaye. waa iska tegey nebigu calayh salaatu wasalaam. meeshii markuu tegey ayuu madiine kaga daba tegey. madiine markuu yimi buu nebigu soo dhoweeyey. kadibna nebigu wuxuu ku yidhi sal waxaad doonto i weydii maanta wax i weyddiiso. ninkani waa nin reer miyiya. hanka ninka baadiye joogaana inta badan dee inaha uu la nool yahay buu qofku la han yahay. dabeetana wuxuu yidhi waxaan rabaa hal aan fuulo oo weliba irmaan bay riwaayaadka qaarkood tilmaamayaan. riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan iyo ceesaamo aan maallo xoogaa adhiyo irmaan iyo neef geelo aan fuulo. dabeetana siiya buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam. saxaabadiisiisuu ku soo jeesto wuxuu yidhi acajastum an takunuu midla cajuuzi bani israa'iil. waryaadheen war miyaa ka liidataan habartii reer banu israa'iil buu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam. waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo habarta reer banu israa'iil maxay ahayd? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay islaan reer banu israa'iila. nebi muuse markii uu hijrooday ee uu ka baxay fircoon iyo meeshii uu maamulayey ee ay safarka ahaayeen ayay waddadii ka lumeen. dabeetana way soo noqdaan waddadii bay heli kari waayeen. lumistaa ku badatay. dabeetana waxay idhaahdeen muuse u istaag. raggii la socdaa waxay idhaahdeen ballan baa jira nebi yuusuf uu reer banu israa'iil ka qaaday oo aynan fulinin. waxaynu la lulumaynaa waa ballankii yuusuf baan u malaynaynaa. waa maxay buu yidhi. waxay dhahdeen nebi yuusuf wuxuu yidhi reer banu israa'iilow haddaa meeshaa ka baxdaan maydkayga ha kaga tegina iga qaada. xabaashayda qodoo iga qaada anigana markaa. ballankaasuu naga qaaday bay yidhahdeen nebi yuusuf markuu geeriyoonayey. marka waxaynu la lumaynaa baan filaynaa ballankii yuusuf baynu khilaafnaye nebi yuusuf aan raadinno. yaa garanaya baa la yidhi xabaashii nebi yuusuf. waxaa la yidhi habar unbaa wax nooloo imika garanaya hal islaanaba hadhay habartaasaa hadhay. habarta igu yeedha buu yidhi. habartii baa loo yeedhay. habartii baa waxaa la yidhi waxaan rabnaa inaadna tusto buu muuse leeyahay meesha xabaashii nebi yuusuf. waxay tidhi xukumkayga ha lay siiyo oo waa maxay inaan jannada kugu raaco jannada kula gala bay tidhi nebi muusew. waa habar janno doonaysaa. haddii aniga intaa haddaa layga rabo aniguna waxaan rabaa maxay jannaan doonaya. hankeedu halkaasuu taagan yihi. dabeetana xadiidku wuxuu tilmaamayaa muuse arrintu ku yaro weynaatay. ilaahay baa u waxyooday muuse waxaa la yidhi xukumkeeda sii islaantaa xukumkeeda sii waad leedahay baa la yidhi ballankaa laguu qaad inaad nebi muuse jannada u raacdid ee tilmaam. waxay tidhi nawadiya. waxay keentay meel mustanqaca meel biyo fadhiisiyo qurun ah ayay keentay. waxay tidhi meesha tan biyaa ka dhura. meeshii baa biyaa laga dhuray. markii meeshii la engejiyey waxay tidhi halkaa qodo. dabeetana meeshii baa la qoday waa laga soo saaray. dabeetana safarkii bay bilaabeen. taabuutii nebi yuusufna waa qaateen. waddadii unbaa ilaahay toobiye uga dhigay markaasiyo reer banu israa'iil sidii bay ku galbadeen oo ilaahay ninkii fircoon ahaa iyo kooxdiisii uu ku dhaafiyey oo uu soo gaadhi waayey. nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii uu yidhi sal ee wuxuu hungurigiisu noqday neef geela iyo 30 adhi ee waxoogaa adhiyo uu maalo ayuu wuxuu leeyahay cajastum an takunuu midla cajuusi bani israa'iil. war ma reer banu israa'iil habartoodii miyaa ka liidataan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. waa tii saxaabigii yaraayee rabiica ibnu kacb alaslami xadiidkiisa inta badan maqasheen. in sha allah waxaan axaadiis sheegay wakhtigoo gaaban baan u soo koobay. in sha allah waa wada xasan iyo saxiix si ay culammadu soo naqliyaan. rabiica ibnu kacb alaslami saxaabi yar buu ahaa dhallinyaro ah laakiin wax mahaysatada ka mid ah ahlu sufaha
sufadu waa masaajidkii nebiga xagga dambe berandu ku lahaa ay hadhsadaan saxaabada aan guri iyo waxba toona magaalada ku lahayn ee iska baahan ee halkoodaa seexdaan oo hadhsadaan ragga halkaa joogo ka mid ahaa nin dhallinyaraana wuu ahaa wuxuu jeclaystay inuu nebiga u adeego dabeetana albaabka nebigu seexan jiray intuu kabaha nebiga soo diyaariyo iyo weysadiis iyo waxa intuu soo diyaariyo ayuu albaabka nebiga seexan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nebigu inuu gamay waxaan ku garan jiray markaan tasbiixda maqli waayo inta uu nebigu soo jeedo wardigun baa bixi jiray buu leeyahay subxaanalladiisaan maqli jiray nebigu inuu gamay wuxuunba calaamadii ahaan jirtay buu yidhi marka aan maqli waayo tasbiixda ayaan garan jiray buu yidhi inuu nebigu gamay calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu tooso ee is idhaahdo bax oo kaadi iyo xaajo tag ayaan soo boodaayo waxaan la diyaarahay buu yidhi labadii kabood iyo weysadii labada kabood baan u dhigaa weysadana waa u qaadaayo waa raacaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa arkay wiilkan yar ee dadaalaya dabeetana waxaanu nebigu ciddii wax u samaysaa waa u abaalgudi jiray abaallaawe marnaba ma ahayn maalintii dambuu nebigu u yeedhay wiilkiiyo wuxuu ku yidhi sal waar bal waxi weyddiiso maxaad doonaysaa buu ku yidhi maxaan kuu qabtaa waatano aniga waad i caawisaye adna waxaan kuu qabto sheego riwaayadka qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow aan soo fakero soo tashado u tashado wuxuu isiri war nebi maxamed maxaad weyddiisataa dabeetana wuxuu yidhi war adduunyo haddaad weyddiisato soo barri dhiman maysa adduun muxuu tarayaa waa nin baahanoo masaajidka xaggiisa dambe hurdaa waxba haysanin kaan waxba haysanin ayaa haddana adduun agtiisa wax yar ka yahay oo wuxuu leeyahy war haddaad waxoogaa xoole adduun nebi maxamed weyddiisato adduun muxuu yahay soo barri laga tegi maayo wuu soo noqday wuxuu yidhi waan tashaday ilaahay rasuulkiisiiyo haye maxaad rabtaa wuxuu yidhi waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan saaxiib kugula noqdo adduunka waa anigana waan ku arkaayo waa kaag dhowahaye jannadana inaan kaag dhowaado yacni waa jannada dhulkeeda sare inaan ana tago riwaayadka qaarkood nebigu wuxuu yidhi war yaa kugula soo teliyey tala nin yar ka weyn dee tani tala nin yar ka weyn yaa kula soo teliyey buu ku yidhi wuxuu yidhi cidna adduunkaan arko dee adduunku markaan arkay inaanu wax nafla ahayn ayaan sidhi bu yidhi nebi maxamed ha ka hadhin ee aakhiro jannada xagguu tago inaan la bugeeyo weydii aw hayra daalik buu nebigu haddana yidhi waar waxaan taa ahayn may weyddiinaysaa jannada ilaahay ba hayee bal wax kaloo waxuun may weyddiisanaysaa may buu yidhi anugu intaasaan rabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi haddaba acinnii calaa karati sujuud bal haddaba adna igula dadaal oo igu gargaar sujuud badni salaadda inaad badiso adna bal dadaal annaan ilaahay kuu baryo subxaana wa tacaala yacni hamigiisu halkaasuu joogaa idan asxaab alhami alcaali gaal iyo muslimkuu yahayba qofku hadduu hami sare leeyahy waxbuu xaqiijin karaa laakiin waxaa la xaqiijinaya waxay ku kala gedisan yihiin mataalibta iyo ahdaafta dadku ay leeyihin midna hadaf iyo maطlab dunawiya buu leeyahay midna kuwo kaluu leeyahay